arrimaha soo dhan ayaa qasan haye kooxda la yiraahdo dulmadiid waxa eedaheeda kamid ah gabadh 18 jir ayaa lagu eedeeyay in qabri dahra lagu dilay oo ay dileen lii boolisku oo waliba ceejiya way arrintaasi oo ahayd arrin aad u xun وصح دام دير bay ku dhufteen صح adduunka oo dhan ayay ka qayliyeen in gabadh lagu dilay 18 jir haye 600 oo qof oo Soomaaliya oo lagu dhex dilay agtoodana waxay leeyihiin hal qariyo dawa wala case oo dadka la yiraahdo walaalaheena Oromo haye agada marka aqligu markuu shaqeyn laayahay oo halka waxa ka muuqata in iyagu ay xoog saarayaan eedaha iyo dambiyada ay ka tirsanayaan Cabdi Maxamed Umar laakiin kuwa kale oo madaxweynahooda laakiin markay xasuuqdo Oromadu iyaga eed u markaan waayo Soomaaligu kalumbu ilaashadaa oo eedayamahan haddii cadow kale soo weeraro cadowga wuxuu arkaa walaalkiis haye walaalay Ethiopia walaalay Oromada walaalay haye ra'iisul wasaaraha Abiy